gudoomiyaha degmada Togwajale Xaashim Maxamuud Cabdi oo ah gudoomiyaha hadda talada degmadaasi gacanta ku haya horana u soo ahaa gudoomiyihii degmadani Wajale waxa xusuus mudan in muddada uu xilkaasi hayay wax qabad kala duwan uu ka filiyay guud ahaan magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Togwajale isagoo noqday maayirkii ugu wax qabad ka badnay abid soo maray degmada Wajale isagoo muddada uu xilka hayay hirgeliyay dhowr iyo 10 wado oo dhaxmara magaalada dhexdeeda dhinaca kale mudane Xaashim Maxamuud Cabdi gudoomiyaha degmada Togwajale ayaa isagoo xusuus mudan inuu kaalin mug iyo miisaan la ka qaatay xisbiga talada dalka haya ugu guuleystay doorashadii madaxtooyada ee 2010kii in maayirka degmada Togwajale Xaashim Maxamuud Cabdi haatan ah gudoomiyaha degmada Wajale oo kaalin mug iyo miisaan la ka qaadan doono sidii uu degmada Wajale kor ugu qaadi lahaa isagoo horana lagu xasuusan doona waxa weeyaan madaxweynihii ugu horeeyay ee ay dawladdiisu ku guuleysato in ay ka dhisto laamay magaalada degmada Togwajale waxa lagu xasuusan doona waa madaxweynihii ugu horeeyay ay dawladdiisu biyo soo galin biyaha imka yar baa inoo ay soo gelisay magaalada Togwajale ayuu noqon doona waxa lagu xasuusan doona inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay isbitaal ka dhisa degmada Togwajale ummadda Togwajale oo in badan u halgamaysay inay iska baabiiso dhooqadii iyo biyihii iyo magaaladii aan isku talaabayn in maanta daamurkii u horeeyay laamadii u horeeyay aan dhigayno oo ay nagala qayb galayaan mas'uuliyiintii gobolka iyo degmada iyo shacbi weynihii iyo shaqaalihii dhammaantoodba taasaa farxad weyn oo ah had iyo jeer aan xoolahaynu dhaqanay xoolaha neefka u caana daran iyo u cib badan oo u qaylo badan dadkana waxa weeyaan ninka ugu waxtar yar baa ugu qaylo badan waa loo baahan yahay qayladiisa laftiisa waxtaruunha ku dara oo wax qabadkiisii reer Wajale oo waligood ku riyoonin meel laama baydin ayay idin mari doontaan muddadii 3 sanadood ahayd in maanta aynu furayno fayskii koowaad ee laamadii daamurka ahayd taasi oo aan halkaas ku joogsan doonin insha Allah ee aynu dhammaanteed inay dhiirida iyo boodhka iyo Wajale ka imdo kaba gaaraan xidhnaa maalin taale ama silbatay ama siiga ku qaaday soo ma ahayn taas way baabaaday maanta gudaheedo laamadii isku xiriisay min Berbera ilaa Wajale oo wax ka yar 6 kiiloomitir ay harsan yihiin 6 kiiloomitir ay harsan yihiin Wajale wixii diin bal qaaday madaxweynuhu waxna way qabsoomeen wixii kalena insha Allah taala waa qabsoomaya anana taasaan ku shaqeynayna wadadan Wajale shalay bay ahayd markii aanu qaadaankii dawladda ee shacabka isku ururinaynay halkan ay ahayd hoolkan markii aanu ku ururinaynay haday maanta dhabowday oo laami la dhigay oo dhabowday xaashina maalintii hore halkan ka hadlay aan lahaa xaashooyana ka soo horeeyay halkii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay hiigsiga himilada dalkeena Qadar Cabdi Cabdillaahi warbaahinta madaxa bannaan degmada Togwajale